السلام عليكم maalin wanaagsan magacaygu waa maxamed kusoo dhawow barteeda youtube-ka ee Moosal Adwan bartan badanaa waxaan kusoo gudbiyaa muuqaalo la xiriira waxbarashada marka ugu horeysa maanta waxaan doonayaa inaan u hambaliyo ardayda dugsiga sare soo dhameysay sanadkan 2026 waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu wax badan ka bedeli doono ardayga Soomaaliyeed ee doonaya inuu deeq waxbarasho dalka dibadiisa ka helo taas oo uusan u marin abti adeer awoowo nin mas'uulka dawladda ama qarash badan buu ugu bixin talada maanta aan siinaya ardayda dugsiga sare soo dhameysay waa mid aan aniga hore u helin markaan dugsiga sare soo dhameynay anigu waxaan ahay maxamed waxaan ku noolahay dalka Turkiga halkaan waxaan u joogaa waxbarasho heerka labaad ee jaamacadda ama master degree waana mid free ah yani waxbarashadeedu waa free sidoo kale tan waxaan helaa lacag pocket money sidaas oo kale baan doonayaa ardayda dugsiga sare sanadkan soo dhameysay in ayagana u helaan deeq waxbarasho dhameystiran oo caafimaadkooda waxbarashadooda iyo weliba maalin joogooda la bixinayo haddaba ardayda dugsiga sare markii ugu horeysay waxay qaadeen tallaabo noloshooda ay wax badan kaga bedelayaan waxayna ku soo gudbeen imtixaanka hadda waxa laga yaabaa inaad haysatid natiijo aad ku farxday haddaba waxaan kula wadaagayaa talooyinkan kadibna scholarship-yada available-ka ku ah oo maxay ahayd aad dalban kartid ayaan kula wadaagayaa intaasna waa tip laakiin shaqada ugu badan dhankaaga ayay soo jiri doontaa oo adiga ayaa sameyn doona baaris ku saabsan jaamacadaha deeqaha waxbarasho bixiyo dawladaha deeqaha waxbarasho bixiyo hay'adaha deeqaha waxbarasho bixiyo iyo weliba maxay ahayd kuwa waivers waxa la dhahaa ama qiimo dhimista sameeye ee aad wax ka baran kartid hadda waxaad haysataa shahaadadaadii ama wayba miiska ay ku saaran tahay oo dhibco fiican ayaad ku baastay waxa laga doonayaa waxa waaye inaad ku haysatid waxa la yiraahdo national ID ama passport labadaasi waxay bilow u yihiin in bal aad website inaad tagtid aad wax ka dalban kartid ama jaamacadda ka dalban kartid waayo website-yada jaamacadaha ama dawladaha ay deeqaha waxbarasho ku bixiyaan ardaygu waa inuu reference leh reference-gana waxa kala kuma noqonaya passport ama national ID marka waxa ugu horeysa ama talaabada ugu horeeya laga rabaa inaad national ID haysatid ama passport my recommendation is passport I know arday badan ma awoodi karaan inay passport xilligan qaataan ama sameystaan ama waalidku uu ku yahay culeys laakiin national ID-ga waa heli kartaa passport-kana ha ku noqdo maxay ahayd waxa labaad ee aad sameyn doontid waayo passport-ka 5 sano expire ku yahay 5 sanana wax yar maahan waxaad ku gaari kartaa hadafka hadda kala hadlayo marka passport ama national ID waxa koowaad ee ay tahay inaad haysatid waxa labaad oo ay tahay inaad haysatid waxay weeyaan sawirada testerada oo ama wax la yiraahdo passport photo sababta portalada qaar la dhisayo waxa la geliyaa sawiradaas wax weyn ma ahan kaas maalinta koowaad aad sameyn kartaa haddii aad iPhone haysatid ama telephone Samsung haysatid ama meesha kugu dhow maxay ahayd maktabada oo maxay ahayd sawir lagu qaado isaga soo qaadi kartaa wax weyn ma ahan taasi qodobka saddexaad aan ardayda rabo inaan la wadaago waxa waaye shahaadadooda ay soo qaateen dugsiga sare haddii af Carabi ku qorneed ama af Soomaali ku qorneed oo English aysan ahayn waa in translate to English waa in English usoo turjumaan sababtoo ah deeqaha waxbarasho dawladaha hay'adaha iyo jaamacadaha bixiyo dhammaantood luqadda Englishka baa medium of instruction ama waxay u tahay luqadda la isku wada fahmo hadiiba ayaga ee luqad gaar ah kaasi dalbanin sida Romania haddii English ama Romania ku soo turjun lagu dhihin marka waxay tahay in shahaadadaadu haddii labadaas luqadood tahay inaad English soo dhigto haddii English tahayna good waxa labaad maadaama aad tahay dugsi sare arday soo dhameeyay transcript laga rabaa transcript-ga jaamacadda shahaadada dawladda ay bixisana sanadkan kugu dambeeyay form 4 ka shahaadadiisa iyo transcript-ga dhibciyaha ku soo baastay bis ay ku siinaysaa laakiin dawladaha iyo hay'adaha iyo jaamacadaha deeqaha waxbarasho bixiyo transcript-ga ka rabaa waa form 1 ilaa iyo form 4 waxa ka soo heli kartaa form 1 ilaa iyo form 3 iskoolka soo dhameysay dib aad ugu laabanaysaa waxa la transcript-ga iyo diyaariyay transcript-goodii oo ay shaambadooda ku soo dhifteen bay ku siinayaan soo waxay ka caawinaysaa transcript-ga geli marka lagu dhaho inaad haysatid transcript-ga form 1 form 3 ilaa iyo form 4 oo dawladda ay ku siisay marka intaas qodobadaas muhiim weeyaan waxa intaas soo haraya waxa waaye wax motivation letter iyo wax la mid ah waxaasna hadba scholarship-ka ama jaamacadaas markaas wax ka dalbanaysid bay maxay ahayd maxay ahayd ka qoraysaa
intaas waxaa ahaayeen waxyaalaha requirementska ama ardayga hadeertaanba inuu gacanta kusii haysta ay tahay English proficiency ama waxa la yiraahdo English language proficiency ama medium of instruction waxa la yiraahdo oo iskoolkaagii hadii uu waa ognahay badanaa iskoolada Soomaaliya hadii Soomaali ku baxaan iyo hadii English ku baxaanba haduu kuba gaar yihiin iyo kuwa dawladda maamushada yihiinba hadii iskoolkaagu waa medium of instruction kiisa ama luqad wax ku soo baratay English ahayd iskoolkaaga waxaad ka soo qaadataa warqad la yiraahdo medium of instruction oo maxay ahayd marmarka qaar bedelka IELTS-ka iyo meelahaas loo isticmaalo oo luqada English-kina fahmi kartid ku hadli kartid casharada hadii aad maxay ahayd English lagu bixiyaa laga yaabaa inaad dadka macallimiinta aad fahmi kartid cadeynayso marka warqadaas ka soo qaado tala yarna oo ku darsana daadiina aad bay u yartahay fursad fiican oo haystaan adduunkan adinku idin sugaya waqti hal sano wax weyn maahan hadeertaan soo wareegta arki doontaa biri soo maxay ahayd sanadkii ku dhaafo aad waxba qabanin laga yaabo in aragtid maxaa ardayda Soomaaliyeed ku dhiirigelinaa inay luqadaha bartaan hada English aan leed hadii Carabi aan leed qof aan luqada aqoonin waa qof aanan maxay ahayd waxaan dhihi karaa inda badan inda lahayn qof indho la amal sababtoo ah portalka apply gareynayso hadaan ka lahayn website-ka wax ka baaraysid waxyaalahaas dhan English ay ku qorayeen soo marka English-kina fahmi kartid weeyaan marka ardayda waxa ku dhiirigelinaa inay luqada English-ka xooga saaraan bartaan wiliba hadii awoodi karaan ama I know boqolkiiba 80 ardayda inay awoodi karin laakiin ay jiraan arday ka faa'iideysan doonta fikirka maxay taladeeda hadii aad awoodi kartid luqada baratid waxa sameysaa imtixaanaadka IELTS-ka iyo TOEFL imtixaanaadka waxa la yiraahdo international maxay exam result iyo English-ka waxyaalaha la xiriira inaad gashid shahaadada ka soo qaadato TOEFL ama IELTS ka soo qaadato waxay ka caawinayaan jaamacado badan UK iyo maxay ahayd Jarmanka Talyaaniga wadamo badan oo Europe inaad dalban kartid waliba waiver ku heli kartid qaarkood scholarship ku heli kartid marka shahaadooyinkaas way naafacayaan IELTS-ka amal online baa lagu sameeyaa TOEFL-ka naftirkiisa online baa lagu sameeyaa imtixaankiisa dalka lagu magala umeynaya mar dhaxaas arkay school maarif oo daafray imtixaanaadka IELTS-ka iyo waxyaalahaas jaamacad xiriir leh iyo ayagoo dhahayaan imtixaankaas wax qaadena hadii jirto raadi hadii jirina laakiin online baa ku heli kartaa adduunka dartan online buu noqdo laakiin aad awood saar in luqada barato luqada fahmi kartid recommendation letter waa muhiim iskoolkaaga macallimiinta iskoolkaaga dhigeysay yani uma baahan xitaa maamulka iskoolka inaad la xiriirtid yani macallimiintaadii cid isku fiicnaadeen dabeecadda taqaanay dhaqankaaga taqaanay oo ku qanacsaneed dadaalkaagii laba macallin oo kamid ah ama hal macallin oo kamid ah warqad recommendation la yiraahdo oo uu adikaaga faahloonay dadaalkaagii waxtarkaagii waxyaalahaas waxqabadkaagii activity-gaada dhan uu ku sheegayo inuu ku qoro tomit meer concern oo ka dhigo yani si aad hadba jaamacad ama scholarship kasto gaar ah aad ugu isticmaasho tomit meer concern waxa ka caawinay inaad dhowr meel oo kala duwan markaas maxay ahayd aad ka dhigan kartid aad ku diri kartid waxaan recommend gareenayaa macallimiinta warqadii ku soo diran badan PDF ka soo dhigi doonaan oo meena haduu yahay mid editable in date-ka tusaale maanta date-ka ee taa kaaga soo dhigay mugtahay date-kaas marka aad laga bilaha soo socda dhan dhowr 10 inaad maxay ahayd jaamacadood ama dhowr 10 dawladda scholarship bixiya aad wax ka dalbanaysid recommendation-kaasna isticmaalaysid date-kan xoogaa markaas inuu kala duwanaada dhici karta varies ku yimaado soo marka haduu wax editable yahay ka bedel macallimiinta dadka cusub kartid inay soo okay hadii laakiin privacy-giisa ay tahayna de maalinta u baahatid la xiriir ku soo diro xiriir fiican la sameeyo macallimiintaada motivation letter adoo ka hadlay mar kasta maxay ahayd aad sameynaysaa marka scholarship-yadan saddexdan scholarship waa kuwa ardayda waxa la yiraahdo hadda soo dhameeyay dugsiga sare ama fresh students-ka hadartan anfacayo scholarship-ka kuwa Turkiga Brazilari waa mid ka daan inta aan ku joogo waa scholarship-kii ugu wanaagsanaa awid aan arkay inta scholarship aan ka soo hadlay ama aan naftirkeeda dalbaday inta scholarship raadina waa wax transparency ah maxay ahayd clear oo aad fahmi kartid marka scholarship-kan wuxuu furmaa sanad kasta bisha koowaad January 20keeda ama 10keeda ilaa iyo February 20keeda ama maxay ahayd 10keeda hal bil u socda marka January sanadkan cusub buu furman doonaa isla sanadka September waa final result-kiisa xilliga la helo oo maxay ahayd ardayda ku soo baxaan waxaan bal leedahay
ardayda sanadkii dhaweyd scholarshipkan ka wada shaqeynay oo instructionadii iyo waxyaalihii waxaas aan usoo gudbiyey oo ka faa'iidaystay hadeertaan maanta ay idin hadlayna safaaradda qaarkood u joogaan maxay ahayd fiisihii dalbashadiisii processka ugu dambeeyay isbuucyada soo socdana halkan ugu imaan doon ardaydaas aan baliyaa leeyahay wadada ay soo raaceen inaa soo raacdaanna waan maxay ahayd rajeynaya muuqaal badan oo ku saabsan Turkiya Brazil muxuu yahay sida loo apply gareeyaa dad oo ku guuleysteen interview ka qaaday YouTube-kayga dibadda raacdad waa ka heli kartaa marka scholarship-kaas baa jiro January al dalbada ardayda bachelor-ka uu dhiirigeliyaa da'da 21 sano wixii ka yar markaas buqaata marka da'daadana maadaama bachelor ay tahay ma ahayd aad dalbanaysid oo dugsiga sare soo dhameysay 21 sano wixii ka yar inaad jirtid oo ku rajeynayo marka ardayda marka scholarship-kaas inay dhagto ku hayaan oo maxay ahayd u si diyaar garoobaan January hadda waxa ka dhiman haddii aan qaldaneen 4 bilood wax la mid ah marka 4taas bilood diyaar garow fiican ku sameyn kartaa passport-ka ku sii darsan kartaa national ID ku darsan kartaa transcript-idan ku sheego darsan kartaa motivation-ada ku sii baran kartaa luqadda English-ka ku sii baran kartaa Turkiga wuxuu yahay ogaan kartaa jaamacadda Turkiga wuxuu yahay ogaan kartaa maalin kasta hadda jadwal ismeysatid oo ku guuleysan kartaa adoon waalid dhibin qofna dhibin halkan ay imaanaysaa diyaaradda tikidkada laga soo bixinaa baasaboorka fiisaha maxay fiisaha waa lacag maxay halka markay imaado caafimaadkaaga waa free waxbarashadaada waa free gurigaaga waa free maxay ahayd safar jira wadanka Turkiga dhexdiisa magaalooyinka Turkiga dhexdiisa ku aadayso dalxiisa waa free intaas boqof laga mahelo ma fahantay marka adoo waalidkaaga dhiban intaas ka faa'iideyso marka Turkiya Brazil dhagta ku haya waa in wax la yiraahdo achievement-gaaga ama shahaadada academic score-kaaga oo 70% ka sareeya 90% ardayda transcript-gooda bahalka ay sheegay dhibcahooda oo ka sareeyana waxay dalban karaan wax la yiraahdo medicine iyo dentistry haddii aad daneynaysa caafimaad inay baratid halkan lagu keenaa 6 sano 7 sano 8 sano caafimaad free waxbarashadaada dhan 9 sano la qabo soo marka scholarship-kaas Turkiya Brazil wuxuu furman doonaa January 10-keeda ilaa February 20-keeda marka dhagta u hay maxay ahayd scholarship-kaas kana faa'iideysa ardayda sanadka horena waxa leenahay hambal iyo muuqaal ku saabsan YouTube-kayga already kaga diyaariyay oo soo fiirin kartaa waana ka faa'iideysan kartaa scholarship-ka nooxiga waa Global Career Scholarship embassy-ga wasaaradda arrimaha dibadda soo maraya wasaaradda waxbarashada soo maraysa kadibna wasaaradda waxbarashada shaacayso xanaanka loo maraa Gmail lagu diraa codsiyada iyo haddii portalka jaamacadda wasaaradda waxbarashada dhexdeeda laga dhaxawsanayo way idin la wadaagi doontaa sidaan ku aragnay scholarship hore original ah sida kuwa ee ka heshay maxay ahayd dawladda Indonesia kuwa dawladda kale ee ka heshay oo wasaaradda waxbarashada la soo dhaxmarsiiyay ee nashaacay sanadka horena aragnay sidaas amal sanadkan ina aragna waa rajeynayna ka faa'iideysataan sidoo kale scholarship kale ayaa jiro oo la soo dhaxmarsiiyay wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha dibadda waxa la yiraahdaa Next scholarship oo dawladda Japan ay bixiso arday badan oo Soomaaliya ka faa'iideysteen adinkana waa idin rajeynaa ka faa'iideystaan bachelor kala siyaal oo maxay ahayd focus garay bisha April sanadkan buu asagana kaas oo noqon doona wasaaradda waxbarashada la soo dhaxmarsiin doona iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda scholarship-kaas asagana ishina ku haysaan weeyaan scholarship-da ka too jira waxa waa mid asagana maxay ahayd dawladda Shiina ay bixiso asagana la soo dhaxmarsiiyay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda waxbarashada la soo marsiiyay kadibna laga faa'iideysto scholarship-kaas portalada caadi waa ka xarin kartaa indhaha ina fartid oo bis baahan tahay jaamacadaha la xiriirtid waxa jiraan dalka Shiinaha jaamacada iskood waxbarashada free u bixiyo ayagana turkada apply garee maxay ahayd kana faa'iideyso dawladnimo wixii caqabadii iyo waxyaalaha kala la kulantaan ama arataan ama su'aal u baahantiin qaybta comment-iga soo qoro ama markaas ku soo jawaab muuqaal baa ka soo sameyn doona dawladnimo that's all waxaas intaas aan maanta inaan idin la wadaago waxaan idin rajeynayaa guul maalmo badan wada qaadan doona ardayda fresh students-ka ah fursadaha aan arka ee scholarship-yada idinku habboonna halkan baa kala socon doontaan oo si daily ama usbuucla idin kugu soo dhigi doona waxaan ahay Maxamed waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan